Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa in ka badan 120 xildhibaan waxa ay qalinka ku dugeen in ay mooshin ay ka keenaan asaga iyo xukuumaddiisa. Haddaba xildhibaano ka tirsan Golaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya ayaa kulamo gaargaar ah waxa uga socda Nairobi iyo sidoo kale caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Inta badan xildhibaanada ayaa waxa ay karkaranayaan mooshin ka dhan ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. haddaba intaan u guda gelin warbixintaas oo dhammaystiran saaxiibayaal noo qurxiya muuqaalka like inoo saara. Sidee u aragtaa in xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre haatan ay wajahayso mooshin ka dhan ah golaha shacabka? haddaba inta badan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xildhibaano ka tirsan Golaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya ayaa waxa ay karkarinayaan in ay xilka ay ka xayuubiyaan xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. walow inta badan wararka aan helayna ay sheegayaan in 25 bisha Agoosto ay xildhibaanadaas ay golaha shacabka hor keeni doonaan mooshin ka dhan ah Ra'iisul Wasaare Xamse. haddaba waxaan ognahay xildhibaanada hor kacaya mooshinkaas in uu ka mid yahay uu hogaaminayo xildhibaan Sanyare. wararka aan helayna ayaa waxay sheegayaan in 25 bisha Agoosto la hor keeni doono golaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxaa la doortay sanadkii 2022 bisha Agoosto. haatanna waxaan ku jirnaa isla bisha Agoosto ee 2025. waxaa u buuxsantay 4 sano oo xiriir ah oo inta badan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha horey aan usoo arki jirnay in isqaqabsi ay ka dhici jirtay, balse ay tahay xukuumadda hadda talada heysay iyo madaxweynaha in ay isfahmeen, taasi oo inta badan ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda ay isla jaanqaadayaan. haddaba Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre muu noqon doonaa kii xilkiisa dhammaysto, mise wuxuu noqon doonaa sidii ra'iisul wasaarayaashii hore ay ka horreeyeen waddadii ay raaceen ayuu raaci doonaa? haddaba wixii warar ay ka soo kordho xildhibaanadaas mooshinka karkarinayo iyo sidoo kale 25 Agoosto ay tahay in ay maalinka uu baarlamaanka uu furmi doono in mooshinkaasi ay hor keeni doonaan guddoomiyaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe. haddaba wixii warar ay ka soo kordha ee mooshinkaasi ay karkarinayaan xildhibaanada Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya qaar ka mid ah, inkastoo gadaal ay ka riixayaan sida wararka aan ku helayno xildhibaane saaxiib dhow leh madaxweynaha Soomaaliya iyo Xasan Sheekh Maxamuud. wixii warar ay ku soo kordhaan mooshinkaas iyo sidoo kale tuminteenna dambe ayaa saaxiibayaal idinkula wadaagi doonaa insha Allah.